Microsoft ayaa la ganaaxay $730 milyan kadib markii dadka mucaamalka ay siin weyday ikhtiyaar shirkad kale ay u isticmaali karaan markii ay macluumaad internetka ka raadsanayaan. Guddiga Ururka Midowga Yurub ugu qaybsan tartanka ganacsiga shirkadaha ayaa sheegay inay doonayaan in shirkadaha kale ay ku cabsiyaan kan noqoshada ballan shirkaduhu hore u qaadeen inuu cawaaqib yeelanayo. Shirkadda Volvo ayaa soo saartay baabuur si otomaatiga uga istaagi kara dadka bishkuleetiyada wata. Kombiyuutarka baabuurkan ayaa isticmaalaya raadaar kaamaro la tacaamulaya sawirrada maskaxda kombiyuutarka ku jira si uu baabuurka u qiimeeyo khatarta dhici karta. Mar hore ayaa shirkaddu waxa ay gaarigan u yeeshay qalab ka ilaalinaya inuu dadka ku dhaco gaarigu. Hay'ad ka shaqaysa waxbarashada uu leeyahay Rupert Murdoch ayaa waxa ay soo saartay qalab cusub oo yar oo loogu talagalay ardayda dhigta dugsiyada dalka Maraykanka. Qalabkan oo jooga $299 ayaa waxa ku jira manhajka oo hore loogu duubay, waxaana kharash dheeraad oo ay macallimiintu bixiyaan ay isticmaali karayaan qalabkan si ay ula socdaan sida ardaydu wax u bartaan, dugsiga inay ardaydu yimaadaan iyo inay u gooyaan, iyo kuwa kombiyuutarada ku ciyaara oo keliya. Waalidka ayaa iyana waxa u suuroobi doonta inay arkaan hawsha ay ilmahoodu qabtaan. Waxaa abaalmarinta BAFTA ee sanadkan 2013 helay fiidiyow ay carruurta ku ciyaaraan oo la magac baxay Dishonored. fiidiyowgan ayaa waxa uu ku salaysan yahay magaalo ay cudurro badan aafeeyeen oo taariikhi ah, meesha oo carruurtu ay ku dagaalamayaan seefo iyo qalab gaar ah. Abaalmarinta Britishka ayaa sidoo kale waxaa heshay shirkadda ciyaaraha carruurta samaysa ee ku taala California. Shirkaddaasi ayaa waxaa heshay 5 abaalmarinood.